wasiirada sharafta leh culamaa diinka maamulka gobolka Banaadir haweenka ururada bulshada dhalinyarada jaamacadaha ganacsatada iyo marti sharafka waxaan leeyahay dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waa soo weynaa barnaamijkan maanta oo ku saabsanaa abaaraha ka jira dalkeena qaybo kamid ah oo maanta loogu talagalay wacyi gelin ahaan inaan dhamaanteen inta gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta dawladda aan halkan isugu nimaano oo ku talagalka oo ahaa in aan dareenkeena soo bandhigno si aan bulshadeena ula qaybsano sidii gurmad aan u wada sameyn lahayn dhamaanteen barnaamijkaas oo maanta ku saabsanaa anaga aadan soo dhaweynaynaa aase ganacsato ahaana qayb libaaxan ka qaadan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxyaalaha aan rabno oo isleeyahay aniga intaan u gudbin ballanqaadka ganacsatada iyo ku talagalkeenaba waxaan rabaa inaan iyar ka hormarsado dadka Soomaalidu waa dad isu gurmada isu gargaara dhibaatooyinkan isla qaybsaday inta badan waxa dareemi kartaan intii dagaaladu dalkeena ay ka dhaceen ilaa hadda guda iyo dibadba waa la istaakuleeyaa waa la isla wada nool yahay waa dad cudwa waaxida ah oo mar walba iskaashada inta badan dalkeena wuxuu ku dhisan yahay dhaqaalaha ay soo diraan walaalaha diaspora oo dibadda laga keeno iyo adeega tirada badan ee ganacsatada ay sameeyaan oo risk taker-ka ah iyo bulshadeena oo dhamaantood culamaa diinkeena wacyi gelin joogta ku jira aad la soo wada kaashada waxaan dareemi karnaa dhibaatooyinku waa soo noqdaan laakiin waxa fiican in daraasad laga sameeyo oo marka loo diyaar garoobo dhibaatada ugu badan ee ugu soo noqoto waa biyo la'aanta abaarta waxa ka daran inta badan oonka oo dadkeena inta badan ay u dhintaan waxaan xasuustaa 2006 waxaan u gurmanaynay gado oo saan oo kale dhibaatooyin ay ka jireen biyo la'aaneed inkastoo barigaasi aan haysanay hay'ad ay gacanta ku wada hayeen ganacsatada iyo culamaa diinka oo gurmad fiican barigaas sameysay haddana waxaa la rabaa in daraasad laga sameeyo 2006 waxay dhacay inay haddana hadda taagan yihiin oo maalin walbana aad dareemaysiin in ceelal naloo qodo oo maalin walba ceelal deeqa ay noo yimaadaan waxaa maqlaysaa 40 ceela waxaa ku deeqday urur hebel ama wadan hebel dalkeena ku deeqay meelaha ku haboon in lala aado oo inta badan gobolada gado ma ahan inta badan abaar raashin kama dhacdo inta abaar biyo la'aan ka dhacda gobolada dhexe waxa ka dhaca abaar biyo la'aanada ka dhacda inta badan waxyaalahaas kale waxa fiican in ceelasha la keenayo in lala aado ayaga si looga hortago wax badan waa talahaana soo jeedin lahayn mid kale dhibtaani oo rabaaniga imaanaysana ilaahay waa nagu fiirsanaa waa nala ku imtixaanaya kan wax la siiyay iyo kan wax la siiyay ilaahay waa karaa dhamaanteen inuu qari naga wada dhigo laakiin imtixaankaasana la rabaa inaan ka gudubno marka inaan isu wada gurmano oo gacmaha isqabsano oo walaalahan u kaalmayno nasrigaas waxaan ku heli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo abaalkeeda iyo saan isu gurmano Ilaahay inuu nagu gargaaro ayadana waana dareemi doonaayo markaan hadda isu gurmano dhamaanteen oo ka wada baxno Ilaahay abaalkeeda waa heli doonaa anagoo isku dhamida shakhsiga ana sida culimadu u sheegtaan loo heli doonaa mid caamka ana dhamaanteen wada heli doonaa anaga as ganacsato ahaan ama ganacsato ahaan markii ay arintaan ay nagu inform gareeyeen wasiiradu markiiba anaga waxaan sameeynay inaan ganacsatada aan wacyi gelino ayna bilaabaan inay taabkuleen soo bilaabaan waxaana jira laba akoon oo hore noogu furnaan jiray oo ku magacaaban yihiin akoonadaasi taabkuleenta masiibooyinka dabiiciga ah akoon salaamo ka furan oo nambarkiisa uu yahay 3019251 iyo akoon dahabshiil ka furan oo ah 20556 iyo akoonno kale oo xawaaladaha kale hadda aan rabno inaan ka furno waxaan ganacsatada markiiba ku cilaaminay inay akoonadaas si degdeg wax ugu ridaan haddana waa ku bilowdeen oo ilaa shalay waxba ku soo dhacay oo aan arkaynay waana isleeyahay lacag fiican ka imaan doonta dhinaca ganacsatada waxaana sugaynaa in ganacsatada anoo hadda codkooda ku hadlaaya guda iyo dibadba inaan ugu baaqo meel kasta ay joogaan ganacsatadu ma ahan kuwa Banaadir kaliya waa dhammaan rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo anaga aan wada matalayno hadda ganaadaan Imaaraadka Carabta Dubai hadda ganaadaan maxaan ku raadnaa Nairobi iyo maxaan ku raadnaa iyo Kenya hadda ganaadaan South Sudan South Africa meelaha businesskeena oo ku xoogayo dhawaa iswada naqaana oo gobolka Banaadir oo hooyo u yahay iyo goboladeena dalka oo dhamaantood intooda badan ay ka tirsan yihiin rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dalku dhamaantiis waa isla shaqeyn karaa akoonadaas hadda aan faafinay iyagoo qoraalana website-kan soo dhigi doonaa in akoonadaas si taabkuleena loogu wada rido wixii aan heli karno dhamaanteen ganacsatada waana ay bilaabatay inta hadda ku ridana waa uga mahad celinaynaa inta kale soo socotana oo aan dukumeentiga u gudbina ama aan idaacadda kala hadalnayna waxaan rajaynaynaa inay naga daba yimaadaan waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado ma ahan kaliya cod ganacsato kaliya ma raba inaan shacabkeena iyo bulshadeena inaan u hadlaan rabaaye
adduunku wuxuu isugu gargaaraa si aan dhib lahayn oo fudud hadda bilmetel anaga waxaan leenahay EVCA email aan leenahay labadaba haddii qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed min $1 laba EVC ama laba email la sameyn doona oo akoon ku xiran oo eelaanka dambe oo wasiirada ay noogu tala galeen oo idaacada lala fariisan doono qof kasta oo muwaadin Soomaali haddii $2 kaliya ama $1 oo ku rido 2 milyan ee qofooda xamar joogta haddii qof walba oo hal maal u qado bulshadaas dhiban ee $1 oo ku soo tuuro waa $2 milyan $2 milyan intay noqon kartana waa dareemi kartaan marka lacagta culus oo la raadinayo waxa ka dhib yar lacagta fudud oo la heli karo waliba ardayda jaamacadaha iyo mas'uuliyiinta jaamacadaha hadda sida ay ka dhawaajiyeen oo saxda ahayd ay ballan qaadeen haddii arday kasta oo jaamacadda dhigta dabcan aabiyaa bixin doona ama hooyadaa bixin doona laakiin ayaga lagu dhiirigeliyo in arday kasta la yiraahdo $1 maalinta talaada hore hoos oo qaato la yiraahdo oo secondary ilaa dugsi dhexe ilaa jaamacadda la yiraahdo 70 kun ay ka badan yihiin ardaydeena hadda oo gobolka Banaadir dugsiga hoose dhexe jaamacadahan hadda waa tan loo sheego ilaa 30 kun ay dhan yihiin waxaan is leenahay $100 markiiba ardaydeena ka imaanaysa si fudud si guudna marka waxaan isla wasoo kuleen doonaa waxaan leeyahay marka anoo uga baxaya arrimahaas ugu dambeyntii inaan ganacsatada Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay inaan mar labaad ku baraarujiyo inay u gurmadaan walaalahood dhiban oo qaarna oon u dhimanayaan qaarna baahi u dhimanayaan ayagana Ilaahay oo ku imtixaanayo xoolaha la siiyay waan rajeynaa inay bixiyaan waana ballan qaadaynaa inaan ku shaqeyno magacaas dawladana waxaan ka codsanaynaa inay markasta baleen ay sameeyaan oo gobolada abaarahu waa wax iska rabaanay laakiin biyaha waxaan isleeyahay waa laga hortagi karaa oo biyaha ceelasha la qodo ayay ku xiran tahay ceelasha in loogu dadaalo goboladeena oo mar walba ay soo noqdaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh